haddaan ka hadlo arrintan ka dhacday iyo dagaalkan ciidamada deegaanka iyo hubaysanayaashii xuduudda Soomaaliland ka soo gudbay ee ciidanka Soomaaliland ahaa iyo hadday tahay al-shabaab waa arrin waxa weeyaan ku salaysan ururada argagixisada iyo ciidamada Soomaaliland oo isgarabsanaya muddo dheer laga shaqeeyay dagaalku ma ahayn ku shacab lala galay wuxuu ahaa hubaysanayaal cadow oo ku soo duulay dalka oo ciidamada deegaanka ee nabad ilaalinta u joogay in shacabkooda ay nabad ku wada noolaadaan loo soo dhaxmaray lagu dhibaateeyay ciidanka wax shacaba oo haba yaraatee xabad riday ma jiro waa hubaysanayaal ku soo xadgudbay deegaanka Soomaalida muddo badan laga shaqeynayay tusaale ahaan saraakiisha iyo madaxda ciidanka Soomaaliland ahaa ee tiknikada wadatay korneylkii ugu sareeyay ee ahaa Jaamac Maxamediyey oo taliyaha oo korneylka ciidanka madaxtooyada Soomaaliland oo dhan haystay muddo 30 sano uu ku dhintay halkaas uu ku dhintay korneyl dhaga weyne oo taliyaha guutada labaad ayaa ku dhintay ee ciidanka Soomaaliland waxa ku dhintay sarkaal sare oo la yiraahdo Cabdi Cali Soofe oo isna ciidanka Soomaaliland dhanka kale al-shabaab muddo badan iyo hanti badan bay ku kharash gareysay meeshan dadkana waa dad la isugu xidhay qaybo cidda ka shaqeysayna waxa weeyaan mas'uuliyiinta ugu sareysa al-shabaab ee u dhalatay qabalayga dacwaley meesha dacwaley la yiraahdo anagu qabalay uma arkay waxaan halkaas saldhig al-shabaab ay muddo badan ka shaqeysay ardaa dhuxul oo al-shabaab ay samaysay inay kaga soo duusho kana soo dhex gasho deegaanka Soomaalida arrintaas waxaa xoog la saaray al-shabaab sanadihii hore markii ay afdheer ka soo gashay ceelgarri iyo halkaa ayaa waxa ay isku qabteen aan halkaa ka gallo iyo aan halkaa afdheer iyo ceelgarri ka gallo labadaas ay isku qabteen sababtoo shacabkii ceelgarri iyo halkaa ee hubka la siiyay ee inay ka garab dagaalamaan la rabay ayaa cabsaday marka way ku khasaareen kadib waxay abaabul adag ka sameeyeen xaggan dadkiina waxa weeyaan waxa laga dhigay amaan waxa weeyaan urur al-shabaab oo rasaasta la siiyo lacagna la wada siiyay waxaana la yiri waxaad ku dhawaaqdaan gobolka hawd ee Safaria afkaartaasi waa mid ay iyagu u dhiibeen dadka shacabka waxayna isla qaateen in ay dagaalka wada galaan iyaga oo hubaysanayaal muddo badan baa laga shaqeeyay sahan badan baa loo soo diray meeshan dhibku ka dhacay waad aragteen inay goob dagaal oo istiraatiiji oo waxa weeyaan lama galaan ay tahay oo toorobooro sida daraadeed madaxda al-shabaab ee ka shaqeynaysay arrinta waxa kamida ninka gaashaan dhiga al-shabaab u qaabilsan ee la yiraahdo Bashiir Furqaan ama Guuleed labada magac buu leeyahay waa nin reer Bokor Axmed Cabdalla waxa weeyaan waa ninka gaashaan dhiga al-shabaab haysta weey waxa kamid ahaa ninka la yiraahdo Cuseyb magaciisa asalka waa Cismaan waa nin reer
وان عربة أو صمناء أو ريحات وتببرها جود الشباب حطيت هاي دنك عيدم كودا يا حطيت هاي دنك استراتيجية دجالك دنك قرحية أنت بنك أقابل سوي وحاول ننسى مناعة وريحات أو دعولي قرش مركا أرنتن هنتي بدن باللجوء بحيي ضدك أفكارها كهلا يوردن هود سفارية منامن وحويان عيدن كودا أي كمتها آذن صورة سيرو آذن سيرو حويان وانين رئة بكر أحمد قولهان هرتا الشباب يا اسكالي وحا اسكالي دي ريركن عرب ايا اسكالي وقوي قلبيت ماشا لغا آسي وهالكا وحانا لغا دبقي كونفر حمر iyo مقدشة إلا جبالين انتاسي إنينا دقين صونا دافين هشيس عد oo Soomaaliland la kala saxeexday weeyaan xilligii in godana uu joogay weey ilaa iyo hadda heshiiskii baa lagu dhaqmaa haddii gaalo oo dhani ala qoys kaniisad uga dhisayso waqooyi saacidi uma taabanayso masaajidada ummadda islaamka ana way ku qarxinayaan marka nin waliba dhashu meesha u taalo uu ilaashan وأب هذا واحد يعني وحويان عيدن كديجان كو وعيدن كالنبض تأتاجن يحسلوني ذا هي متقنا الشعب كودو إن وكرة حيستو تأتاجين واتها لكن عدة أي عيدن ك iyo dawladda deegaanka ay wada hadlayeen ee odayaasha dhanka ka soo jeeda ee kolba Soomaaliland ku noqonayay kullu ka imanayay afkaartii shacabka iyo dawladooda mayna ahayntay ku wada hadlayeen al-shabaab baa daba fadhiday xamuud baa lagu hagayay hada loo soo qorsheeyay oo loo soo dhameystiray bay dawladda loo horfadhiyeen dawladda intee miisaaniyad kaga baxday intee shir lala galay intee baryal lagu sameeyay intee si kasta loo sameeyay hal shacab oo la dhibaateeyay ma jiro wax shacab oo dawladdaas waxa weeyaan ay xabad la dhacdayna ma jiraan waxa weeyaan dad salka ku haya al-shabaab iyo nabadiid iyo argagixiso cidna isu keeni maayaan nabadna ma rabaan dawladooda yani waxa weeyaan dawladdu say ka rabtayna uma hoggaansamayaan shacabkan dadkan xabadda inay ridaan arrin la diyaariyay al-shabaab meel kastay uga soo hambaliyeysay una soo tacaysay wixii meesha ku dhintay ahaa dhankooda argosi in ay ku sameeyaan ciidamada maadaama waagii hore lagu baabi'iyay deegaanka Soomaalida markay dhanka afdheer ka soo galeen in ay argosi halkan ka sameeyaan ummadana ay kasbadaan waa qorshe in badan laga shaqeeyay ragga aan idin sheegay baana ka soo shaqeeyay odayaasha dawladda had iyo jeer hor fadhiyana haddii yihiin odayaal nabad ah oo shacab ah dawladooda ismayna diideen cid kala dawladu ah cid kala ayaa fan garaynaysa lacag ku bixinaysa marka waxa weeyaan dawladoodii dad u hoggaansamaya ma waa dad ka iimaan beelay cid beeni kartaana ma jirto waa xaqiiqo weeyaan dawladuna hanti badan iyo baryo badan iyo dadaal badan bay ku bixisay deegaanka Soomaalidu cid beeni kartaana arrinta ma jirto
iyadii oo cad baan taabsiinayna waxa weeyaan haddii dalka dawlad baa maamusha diriiska waxa loo xidhayna waa in shacabka lagu ilaaliyo laakiin shacabkii hadduu noqdo dad isbedelay oo cadow dawladdii ku ah oo balaayo kale ay ciidamo ka dhigatay waxa weeyaan iyagaa xabadda ridi way rideentay 3 jeer oo isdaba jooga ah ayay laayeen dawladdii oo cad dawladdii mayna ka ficil qaadan bariyo iyo inay hoggaansamaan haddana waday haddana iyagoo laayay oo madaxdii degmada Yoocaale laayay ayaa haddana dawladdii wanaag iyo nabad inta la bariisay ciidankii deegaanka oo nabad la degan yaa shirqool inta lagu sameeyay oo al-shabaab iyo waxa weeyaan ciidamo kale oo iskaashanayo oo ka soo gudbay Soomaaliland ayaa aayar xasuuq iyo dhibaato lagu sameeyay oo dib saa loogu joogsaday waxa weeyaan mar saddexaad oo ay ka sii horeysay dawladdii iyo maamuladii oo nabadii raba oo fadhiya ay aayar xabad la dhaceen maxay baa la calaamadin maxay baa kan waxa weeyaan warqadihii ay odayaasha arabku saxiixeen oo ay ku cadeynayaan in aan wax dhib aan naga imanaynin waan haynaa oo saxiixoodii ah waxa weeyaan ma anficin wanaagii iyo baryadii shacab la laayana ma jiro cid la xasuuqayna ma jirto cadowgii ku soo duulay deegaanka Soomaalida bay dawladda isku dhaceen marka hadda waxa weeyaan cidda hogaaminaysa ee waxaan oo dhan ka dambeysay ee waxaan ay ka wada socdeen labada meelood oo iskarabsanaya korneylada Soomaaliland ee magacyadooda sheegay jaamac maxamedi korneylkii ciidanka madaxtooyada oo dhan haystay weeyaan waa nin araba oo samanaa oo calidaan ah oo ku dhintay al-qaacida kuwa aba ku dhintay oo galagala ka yimid buuraha galagalo oo reerka oo samana oo reer Axmed Yuusuf kuwa hashna ku dhintay waxa weeyaan madaxda al-shabaab ficilkoodii iyo qowlkoodii iyo fikirkoodii oo dhan bay meeshan isugu geeyeen dhibka waxa wadayna waa kuwa bal cidda ka hadli ee beenin ha hadashade